haka beeraynina ku taagnaada sabaan fog baa la tiriyey maddu qoolee weliga waa joogaa Soomaaliya toos isku tiirsada hadda kiina taag baran taageera weligii laga soo bilaabo bishii Agoosto ee sanadii 1981 wuxuu sameynayaa wargeyska ku saabsan warbaahinta bulshada wuxuu daboolka ka qaaday xiriirka qotada dheer ee Kenya iyo Soomaaliya ay ku raaxaysteen ka hor intuusan Muqdisho ka dhicin qalalaasaha kadib afgambigii taliskii militariga ee Siyaad Barre sanadii 1991 bogga socdada New Somalia oo hadda wargeyska Ingiriiska faafinaya ayaa laga yaabaa inuu ka mid yahay caddeynta harsan ay sida Soomaaliya dhowr jeer oo hore ugu imaan lahayd gargaarka Kenya deeq waxbarasho oo loo fidiyay dadka reer Afrikaanka ee reer Kenya ay siisay Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku qoran meel xayeysiiska bogga shanaad ee 4 Agoosto soo baxay sanadii 1981 isagoo tusinaya saaxiibtinimada iyo rabitaanka dadka reer Kenya ah ayuu wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Cali Garaad Jaamac intii uu xafiiskiisa joogay aqbalay codsiga Titor Ken oo u dhashay waddanka Kenya in la guddoonsiiyo dhowr arday oo u dhashay waddanka Kenya waxaana ka mid ahaa deeqaha la siiyey ardayda waddanka Kenya u dhashay 3 ka mid ah warshadaha waxaana 4 kale la siiyey deeq waxbarasho oo dhanka beeraha Soomaaliya xilligaasi waxay aad ugu wanaagsaneed wax soo saarka dalalka Afrika xayeysiintan deeqda waxbarashada ayaa imaanaysa xilli wadamada deriska ee safka hore kaga jiraan soodinta muranka badda ee lagu muransan yahay والله waxaan u maleynayaa in labada dawladood wada hadli doonaan wada hadalkay ku wada hadli doonaan horta marka ugu horeysa waa la socotaa farxaan oo dhulkan Kenya ay ku doodayso ku candacoonaysa badda ah kuma ba jiraan inta hadda ma taqaanaa shirkaddan maartay Norwegian-ka ay soo bandhigtay ma kuma jirto dhulka kuma jira marka waxa dooda Kenya ama la garanaya Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada ugu wanaagsan ee qaaradda Afrika ay ku noolaan karaan ka hor dagaalkii sokeeyay marka laga reebo deeqaha Soomaaliya waxaa kaloo ay ka caawin jirtay ay ka mid ahaayeen wadamo ay ka mid yihiin Kenya iyo Koonfur Afrika inay ka madax banaaneeyaan xukunkii Ingiriiska waddankan leh marinka ugu dheer ee qaaradda Afrika wuxuu ahaan jiray quwad militari oo xoog badan iyada oo laga yaabo awoodaha hawada ugu adag ee saxaraha ka hooseeya Afrika wargeyska ayaa soo xasuusiyay taariikhda ay leedahay Soomaaliya marka loo eego qaaradda Afrika